iyadoo dhawaan deegaanka Qorile oo ka tirsan gobolka Sool iyo sidoo kale tuulada Jalam ee gobolka Nugaal uu dagaal sababay dhimasho ee dhaawac ku dhexmaray beelo walaalaha oo wada dega deegaamadaasi ayaa waxaa soo baxaya baaqiyo nabadeed oo loo diray beelahaasi waxaana maanta magaalada Buuhoodle shir jaraa'id ku qabtay gudoomiyaha golaha deegaanka iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanadiisa oo baaq nabadeed u diray beelahaasi halkaasi ku dagaalamayay iyagoo sidoo kale ugu baaqay ummadda islaamka iyo cid kasta oo jecel inay ka qayb qaadato nabadaasi sida ugu dhaqsaha badan ay halkaasi u gaadhaan 26 September 2015 baan rabnaa inaan halkan ka sii deyno baaq nabadeed baaqaasi waxa uu ku saabsan yahay garaanta Qorile oo deegaanada ka jirta marka hore waxaan sii deynaynaa bulshada meelaha ku dhaqan oo dagaalku ka dhex jiro oo dadka fidmulayaasha ay ka dhex shaqeynayaan oo Soomaaliyeed oo qofna una geeyin in la dilo iyo in la barakiciyo iyo in lagu soo duulo dadka danaha gaarka lihi ay isku dirayaan oo u adeegsanayaan inay istilaan dadka waxaan u diraynaa baaq nabadeed annagoo ah golihii deegaanka degmada Buuhoodle waxaan leenahay wixii dhintay Allah u naxariisto wixii dhaawacmayna Allah u naxariisto Soomaalina maanta ma geedo inay iyadu dhexdeeda isdisho iyo in wiilal 25 sano kadib haddana dagaal qabiil iyo dagaal colaadeed oo deegaano nabada oo dadku ay wada degan yihiin oo wax wada leeyihiin oo dhulku ka dhaxeeyo oo Soomaali wada yihiin oo Muslim wada yihiin in la maaragtay dab laga dhex shido aad iyo aad baan uga xunnahay mana soo dhaweynayno waxaan ka soo horjeednaa dhammaan dagaalada ka jira Soomaali dhexdeeda kuwa annagana lagu soo qaadayo oo gardarrada ah oo 25 sano socda iyo kuwa meelaha kale ka jiraba ma soo dhaweynayno oo aad baan u cambaaraynaynaa waxaan cambaaraynaynaa la qaba oo ka golo deegaan haddaan nahay baaqa nabadda waa ku baaqaynaa waxa inta ay u heliya mas'uuliyadda dagaalka waa inay qirataa inay qaaday maamul goboleedka Puntland madaxdeedu waa inay qirataa sababtuna waxay tahay ciidankani wuxuu ka soo duulay madaxtooyada Puntland amar dawladeed buu ku soo dhaqaaqay inay sidaa tahay waxa cadeynaya wasiirka amniga hadaladii hore u jeediyay inuu meesha weerari doono shacabkana ku maali doono marka anigu waxaan aaminsanahay waxay imka leeyihiin waxaanu ka qayb qaadanaynaa nabadeynta adeer haddaad nabadeynta ka qayb qaadanaysaan maxaad colaad uga nabad qaadateen dhexdhexaad ma tihidin waxaad haydeen ciidanka idinkaa soo diray mas'uuliyadda waa inaad qirataan markaad idinku mas'uuliyadda qirataan ee aad apology ka bixisaan ee aad magdhow ka bixisaan ayaad qodobka koowaad waxaan tacsi u dirayaa marxuunadii ku dhintay deegaanka Qorile iyo agagaarkeeda iyo deegaanka Tuula Jalam iyo Burtinlaba ilaahay waxaan u weydiinayaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo taas waa tacsi waxaan kale oo halkan ka dirayaa baaq nabadeed beelaha walaalaha halkaas colaadu ay uga aloosantay in waxaan leeyahay baaq nabadeed baan u diranaa waxaan leenahay ku soo dhawaada baaq nabadda xabadana hala joojiyo labada dhanba hala xakameeyo taasna baaqaasna halkaasaan kaga gudbayaa qodobka saddexaad aan u gudbayaa waxa weeye madaxda Puntland caado waxay ka dhigteen in ay dhiig sukeeye faraha la galaan waxa ku fashilmay dawladii hore ee madaxweyne Faroole iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdisamed Cali Shire waxay ku fashilmeen oo dad sukeeya ay ku laayeen oo sabab la'aan ay ku laayeen oo Cabdisamed Cali Shire maxkamad lagu saaray magaalada Taleex magaalada sidaad ogtiin waxa ku dhintay dad ilaa 17 qof gaaraya waxaana sabab u ahaa